aqoontu waa furaha nolosha iyo iftiinka mustaqbalka iyo aayaha qofka uu ku beeran yahay han ee tiigsanaya guul wax ku oola oo loo aayo. maalmo mutaxan ayay ahaayeen oo lahaa daal iyo maskax xanuun fara badan keliya uu ka bixi karay qof ay u muuqato maanta oo la joogo. 36 arday ayaa soo gaartay inay yimaadaan munaasabadda qalan bedelashada. ardaydan wax ku baratay jaamacadda Ganaane kuwaasoo ka qalin bedelanaya 3 kuliyadood oo kala ah kuliyadda daraasaadka islaamka, kuliyadda dhaqaalaha iyo kuliyadda caafimaadka. Sheekh Aadan Sheekh Saciid waxa uu ka mid yahay mu'assisiintii jaamacadda Ganaane University ee magaalada Baydhabo, waxa uuna gudoomiye u yahay aasaasiyaasha jaamacadda. waxa uu ka hadlay munaasabadda kana jeediyay khudbad uu kaga hadlayay heerarkii kala duwanaa ay soo martay waxbarashada ka jirta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed godob ahaan Baydhabo burburkii dowladii dhexe dalka. بعد حركة جامعاتها ما يسكتيني مقالنا إن جامعات كلها مدام إسكول كي أنصح إسكول نفس أنصح بالمي كتير فأنا رفض لما كون سنة منتهي لا وقت كون درسنا القلم لأرم كون الدب انفرني شامبون قبل عليه والدي من الأمور الشامبون شيء من إسكول كي دولة أو كذا سبب واجس ما الرواية هي إسكولة كالجيس إسكولة كان مقاسمة بروفيسورة في قديم مركان جامعة إسكودي فردان الصوبي جامعة كونفورت من مرة لما السن مركي فورنايت أستاذ محمد علي كلام مركان ورث رحمة الله عليه توميتو ورثة سنير طلبوا كلية عفمات كيو تومو ميلك توميتو والله مستند دير بعد إلى مدة كان مركون فورني ميلني وريري أنت كهيرتي دولة مسؤول اعترافه. تصميم فهمها سين جامعة وين كجذب لمبه سناي. جامعة إسكول كوين له. إسكول كوين له. أي أقوم سكوفده. وطن مسخيا بدنا تصومال هو بكتار جامعة. لما ما ينبه أنت وزارة تعليم تهتها استرا الاعتراف سنتير لمبه. التيم يتعاطى شهادة كدواس. xasan bile cabdi waa gudoomiyaha jaamacadda Ganaane University waxa uu ka waramayaa mar uu ka hadlayay isagana munaasabadda farqiga u dhaxeeya qofka wax barta iyo qofka aan wax baran iyo shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda marka uu ardayga ka qaato waxyaabaha looga baahan yahay. maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa inaad ficil u bedeshaan. haddii aad shalay arday ahaydeen maanta arday ma tihiin wixii ka dambeeya waxay tihiin dad mutacalimiin oo cilmi leh waxay tihiin macallimiin oo aan rabnaa inay wax baraan. jaamacadda waxay kamid tahay hataa jaamacadda qaata maxay ahayd dadkii wax soo bartay macallinkeed Saacad Rasaaq buulo inta ka hadlaya kamid tahay macallimiin hadda ka bixiyeen. marka adinkana wixii semesterka soo socda September bilaabanaya macallin noqon kartaan. waxa aad barateen ha ku raadinayna inaad shaqaale ku noqotaan. oo hadda inta badan dhalinyarada waxay ka cawaadaa shaqo la'aan. haddii kii wax bartay shaqo raadinaya kii aan wax baranin shaqo raadinaya dhibaya. waxaan idinku dhiirigelinayaa wixii aad barateen shaqaha ku raadina shaqo ku samaysta. mudnaan ayay leedahay in ardaydan ay soo tiigsadaan maanta oo kale balse kuma aysan imaanin si bilaasha way soo tacabireen waxa ay soo geliyeen waqti adag iyagoona ku soo samray xiisadii raadintii casharada baadigoobkii ay ugu jireen helidda shahaadada koowaad ee jaamacadda taasoo maanta u ahaatay. Zainab Cumar Cali waxa ay tusaale muuqata u tahay hooyooyinka waxbaranaya waxa ayna fariin cad u diraysaa dhammaan gabdhaha aan weli ku dhiiran inay wax bartaan. waxay hoga tusaaleyn ku soo qaadatay inay iyadu tahay marwo maamusha guri islamarkaana kartay in ay maarayso waqtigeeda mar guriga ka shaqayso marna ay bulshada u shaqayso. waxa ayna ka mid noqotay 36 arday ee maanta ka qalin bedelanaya jaamacadda Ganaane qaadanayana shahaadada heerka koowaad. alxamdulilah doorashadii waa ku guulaystay anoo magacii jaamacadda ku socdo waxaa aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cabdinaasir oo markaas gudoomiyaha ardayda loo doortay ay ugu soo daray aad iyo aad ugu farxay. doorashadii waxaan ku soo baxay inaan noqdo gudoomiyaha By Women Association Network oo maanta Baydhabo ka dhaqaaqay. runtii Ganaane horumarada ugu horeeyay anoo markaas la imaaday aan ka helo waxaa ka mid ahaa inaan magaalada sumcad iyo sharaf iyo ixtiraam aan ku yeesho oo noqdo qof oo mashhuur ah
oo haween u dhaqdhaqaaqdo diiniyan iyo maadiyan ka dhisan alxamdulilah bacda ganaana ummadda iskale alxamdulilah marka ganaana waxaan dhihi karaa ardayda oo hadda sanadadan dugsi sare ka baxday haddii ay kusoo biiraan qof walba noloshiisa isbedel oo ku arkaa waxaa nasiib aad iyo aad u wanaagsan labada gadoomiye maanta ee ururada bulshada uga caansan deeqo iyo baywoman labada waxay ka mid yihiin ardayda ganaana gudoomiyaha gobolka Baayo Cumar Cali Isxaaq Cumar Balasho oo isna ka hadlay munaasabada kana mid ahaa mas'uuliyiintii lagu soo xasuumay ayaa isaguna dhankiisa waxa uu faalo dheer ka bixiyay heerarka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed maanta uu kaga jiro fagaaraha tartanka waxbarashada marka loo eego guud ahaan dalka isagoona tusaale u soo qaatay sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka qaadayna wasaaradda waxbarashada dalka Soomaaliya in ay fariin cad u direen dhammaan maamul goboleedyada noqotayna Koonfur Galbeed horyaalka waxbarashada taariikhdii Baydhabo hamartii iyo oleysyadii la hamari waradhan ku sheekay keek wala faana qorhayn Soomaaliya madila steedyada Soomaaliya steedka ardada badan u qalin jibin iskuulada tayo badan soddonki iskuul saareen iskuulada ka badan steed ma ku jeedeen kumid ay meel raaisul iskuulkii uu asaasi si saaxiibadiis asaaseen shahaada Sheekh Saciid al-Bashaa'ir kumid ay qalam kumid ay iskuulaad fara badan Baydhabo kumid ah model kumid ay dhammaantii meel raaisul may nagadan ilaa todoba iskuulaha banaadir may ku jartay lama iskuulada ka tayo badan madala qiimeeyay lama iskuula ku jartay كدرسوا مدن سكول أنا أساس جيلها هاي يا سكول كلمات هاي أنا لما دي سكول لو بناتي هقبضي فالصفة هاي كان كلام سكول كلها jaamacadda Ganaane oo ay ka qalin jabinayaan 36 arday ayaa la aasaasay sanadkii 2013 waxa ay ka kooban tahay kulliyado kala duwan oo aad u tiro badan waxa ayna qayb ka tahay 8 jaamacadood ee ku yaala dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadiisa ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo waana jaamacadda inta badan lagu barto culumta daraasaadka islaamka iyo shareecada taas dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay hamuun badan u qabaan in ay helaan arday fara badan oo ka soo baxday kulliyadaha shareecada kuwaas oo wax ka qabta hanaanka garsoor ee ka jira dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar Hirshabelle TV Baydhabo